intaan marka aanan guda gelin cashirka arrin yar baan rabay oo dhibaato taagan inaan yar tacliiqino baraarujin muslimiinta. Arrintaasi waxaa weeye abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jira dalkan aynu joogno qaybo ka mida waad ogtihiin, khaasatan gobolkan ay Soomaalidu degaan North Eastern. dhibaato ba'an baa ka jira, abaaraha ka jira, biyo la'aan baa ka jira, baad la'aan baa ka jirta. marka dad iyo dunyaba waa la lee'anayaa, aad baa loo baaba'aya. kolley miidiyaha iyo warbaahinta waad la socotaan waxa ay soo gudbinayaan. dadkii ahalkiina ahaa markay idinla soo xidhana kolley warka waad helaysaan. hawsha marka aad u ba'an ee dhibaatada ah muslimiinta haysata waxay mudan tahay in la garab istaago oo muslimiintu jawaab wanaagsan ka bixiyaan. dadka masaakiinta muslimiinta xuquuq badan bay ugu leeyihiin, waa fuqaro baaba'aya, waxay xandha adduun hayeenna waa dhaafeen, tabarna ooma hayaan. marka xaggiinay soo eegayaan. waajibaadka saaran dadka aqniyada ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantooda waxgeliyeyna waxaa ka mid a in fuqarada iyo masaakiinta ay wax taraan, waajib diineed wey. markay aafaad iyo dhibaatooyin soo kordhana kaba sii daran. hadda musiibo qaxda iyo abaara ayaa ku habsatay oon hadda ka horba soo maray intii muddo ah. marka nin walba wuxuu heli karo inuu ka qayb qaato ayaa la doonayaa. ilaahi subxaanahu wa tacaala fii kitaabi wuxuu ku yihi waaati da alqurba xaqahu walmiskiin. amar weeye, ruuxa qaraabada ah iyo miskiinkaba xaqiisa sii. gaaladii markii naarta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu geeyey su'aal laga weydiiyo maxaad naarta ku mudateen, maa salakakum fii saqar, maxay ku jawaabeen? qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nuطcimu lmiskiin. ma aanan tukan jirin oo haddaba waxaan mudannay jahannam iyo naar saqara la yidhaahdo. sidoo kale masaakiinta ma aanan wax tari jirin oo maana quudin jirin, jahannamana sidaasaan ku mudannay. miskiinka marka tabaalaysan ee dhibaataysan weliba markuu muslimka yahay ka sii daran, haddii wax la tari waayo oo loo gurman waayo adoo awoodi kara naar baa lagu mudanaya. hawshaa marka waa in jawaab fiican laga bixiyo. miskiinka in wax la taro ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu la simay xaqu lwaalidayn wabilwaalidayni ixsaanan wabidi lqurba walyataama walmasaakiin. dadka fuqarada marka masaakiinta ah ee baaba'aya ee dunyo iyo dad waxay hayeenba dhaafeen ee lafahooda inay badbaadiyaan oo hadda ku rafanaya, waa in gacan islaamnimo loo taago, waa in loo gurmado wixii la tari karo. nin walba wuxuu awoodi karo, ninka calal keeni kara, ninka biyo keeni kara, ninka shilin cad keeni kara, ninka raashiin keeni kara. wax shilin hadda laydinka rabo maba jiraane, raashiin masaajidkaa soo dhooba, ha loo qaado masaakiinta. nin waxba heli karo, dukaamaha intaad tagtaan bakhaarada raashin halkaa la keeno. muslimiin qaado oo bas ka saara la waayi maayo, kuwa gawaarida looriga shidaal ku shuba la waayi maayo. bal ruux walba wuxuu heli kara, rag iyo dumar, sagiir iyo kabiir. masaakiinta muslimiinta loo gurmado. dadaallo badan baa la wadaa oo muddana la soo waday, laakiin weli kuma fillo. meelo badan oo weli xataa la gaadhin oo qaylidu gaadhin baa jira. marka yaan la isdhiganin. dhibkeenu haddaynu reer magaalnahay waxaa weeye kama warqabnaba dhibaatada dhacaysa iyo waxaa jira. laxdhokan coli abaarba moog weeye. nicmada aynu iska haysanay, biilasha inoo saxan iyo masaajidda inoo camiran baynu moodaynaa in adduunkao dhanba uu ka wada jiro. waxay dhihi jireen Soomaalidu habardu jir ku hayo, waxay moodaa adduunkao dhanba inuu jir ku hayo oo habruhu ku hayo. marka waa la isku imtixaanaya. nicmada yarteed haysataan, shukri bay u baahan tahay jawaab degdeg in laga bixiyo. baktigii baa u xalaala, meydkii baa u xalaala. waad aragteen qaybo ka mida xoolihii markay dhaafeen intay isgaran waayeen bay isdileen. nin geed kala laada waad arkayseen oo 400 oo sacay dhaafeen oo isgaran waayo lood israaciyey. meel xun baa wax marayaan. marka waxaan muslimiinta ka codsanaynaa codka annagu u gaari doono dal iyo dibadba, hawsha inay jawaab degdeg ka bixiyaan, muslimiintana u gurmadaan, ilaahayna ka cabsadaan. xaqul muslimi cala muslim waxaa ka mid a inuusan dulmin ruuxa muslimka ruuxa kale, uusan xaqirin, walaa yuslimuhu, uusan balaayo u dhiibin ama cadow u dhiibin, walaa yakhdiluhu, garabkiisa uusan ka bixin. ruuxa muslimka adoo ka badbaadin kara dhibaato haddaad faraha oga qaada dawaad u dhiibta bahal baad cunsiisay. fuku lcaaniya
وأطعموا الجائع أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام كباهن قودية مثل حبسه كجران السود داية أسير كان السود داية مسلمين تمركا ضي وحستران وحنبارتان وإسقاطان dhibkan ba ma yimaadeen walidaalika ayaa saxaabadu oran jireen dhibka walbo masaakiinta fuqarada ku dhacaya wuxuu ka yimaadaa tadyiic iyo dayacaad ka timaada aqniyada inta wax haysaaday zakawaadkooda iyo sadaqaadkooda iyo xuquuqda si fiican u bixinayaan markay dhibaato timaado soo kordhana ay gurmanayaan dhibkan ma joogeen marka la soo naxariisto ilaahna laga cabsado muslimiintana gacan hal la gaarsiiyo imaamkana waxaan ka codsanayaa hawsha inuu si guud uga hadlo oo bakhaarada la furo oo raashinka la keeno muslimiinta loo gurmado sidii loo gaarsiin karaba intaas aan lahaa waad mahadsantahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka ummadda ka faydo idinkuna kuwii wax baxsho ummadda waxtar allah idinka dhigo meel walba muslim ku dhiban yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kurbadaha ka faydo waxaad bixisana allah idinka aqbalo mid naar idinka badbaadiyo xisaab culusna allah ka dhigo